maxaa dhici karaya haddii ay burburto ilaahay naguma keenee jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya waxaynu saadalinteena sal uga dhigaynaa juqraafi siyaasadeedka geeska Afrika. Soomaaliya waa dal qani ah iyo dad faqiir ah oo ku fadhiya isgoyska Afrika, Carabta iyo Aasiya. Haddii dawladda dhexe ee Soomaaliya burburto ma noqon doonto arrin saamaysa gudaha oo kaliya, balse waxay yeelan doontaa saameyn ka baxsan xuduudaheeda, saameyn bedeli karta miisaanka awoodda ee geeska Afrika. Maxaynu ula jeednaa burburka dawladda dhexe ee Soomaaliya? Burburku ma aha in dalku gabi ahaanba baaba'o, balse waxaan ka wadnaa marka hay'adaha dawladda dhexe ay lumiyaan sharciyadii, meesha ka baxaan ciidankii midaysnaa lana waayo awood go'aan qaadasho. Markaas kadibna natiijadu noqoto dawlad goboleedyada oo isu bedela quwado madax bannaan. Burburka Soomaaliya wuxuu abuuri doonaa firaaq amni ah iyo mid siyaasadeed oo degdeg ah oo aan la buuxin karaynin. Waxaa abuurmi kara xasilooni darro ballaaran oo gobolka saamaysa, badda oo ammaan noqon weyda, tartanka quwadaha shisheeye oo sii kordha. Dawlad goboleedyada kuwa ayaa faa'iideysan doona oo burburka Soomaaliya faa'iido u tahay. Mar walba oo dawladda dhexe burburto, awooddu waxay u wareegtaa gobolada. Ka faa'iideystaha koobaad waa Somaliland. Hore ayay u qaateen go'aanka goosiga, waxaana la saadaalinayaa in haddii tani dhacdo ay u tahay fursad, mar kalena ay u tahay caqabad ku aadan madax bannaanidooda iyo amnigooda gudaha. Puntland waa ka faa'iideystaha labaad, waxayna cuskan tahay dhul istiraatiiji gaar ahaanna dhul badeed, dekado, waxayna leedahay xiriir dibadda ah oo wax weyn u gooya. Waxa haddaba iska cad in maamulkaasi u dhow yahay dawlad madax bannaan, waxaana laga yaabaa in haddaba sidaas ay qabaan qaybtood. Jubbaland waa ka faa'iideysaha saddexaad, waxa caawin doona xuduudaha ay la wadaagta Kenya, ganacsiga dekedda Kismaayo, waxaana la saadaalinayaa inay si dhow ugu xirmi doonto Nairobi. Galmudug waa maamul nugul oo ku tirsan qabiil iyo quwad beeleed, ayagu waxay u badan tahay inaanay ugu badin karin kala burburka dalka Soomaaliya. Koonfur Galbeed waxay hanti ka leeyihiin beeraha Baay iyo Bakool, waxaana mustaqbalkooda caqabad ku ah kooxo hubaysan oo saldhigyada u waaweyn ay haystaan uu yahay dhulkooda. Dalalka dariska ah faa'iido mise khasaaro midkee ku qabaan burburka Soomaaliya? Dariska Soomaaliya midkoodna si buuxda ugama faa'iideysan doono burburkeeda, balse mid walba wuxuu leeyahay dana u gaar ah. Ethiopia aynu eegno, waxaa mabda u ah ka hortagga qaran Soomaaliyeed oo xoogan oo dunida ku soo noqda, waxaase burburka ay kala kulmi doontaa khatar amni iyo qaxooti ku soo faafa. Kenya ajandaheeda u weyn waa xagsashada saamaynta Jubbaland, mana doonaysa in ay aragto dawlad Soomaaliya oo ka hoos bixisa, waxaase ayna caqabad ku noqon doontaa kooxo hubaysan iyo xuduudda oo furan. Djibouti haddii ay Soomaaliya burburto, waxay ka nasan doontaa in gobolku ay ku soo biirto dekadda Djibouti la tartanta, laakiin waxay noqon doontaa wehel la'aan. Khatarta taa ka weyn ee dul hoganaysan waa amni darro ku yimaada marin biyoodka Bab el Mandab. Maxay dalalka gobolku u doonayaan Soomaaliya inay burburto? Dalalka gobolku Kenya iyo Ethiopia, burburka Soomaaliya waa mid ay naawilaan, waana mid aan la maamuli karin lana saadaalin karin. Waxay doonayaan inay Soomaaliya burburto sababtoo ah waxay ka dhaxarkaan faa'iidooyin ay ka mid yihiin dariskooda oo noqonaya dal tabar yar sida haddaba uu yahay, kaasoo aan hor istaagi karayn khayraadka Soomaaliya oo si sahlan loo helo iyo arrimo kale oo siyaasadooda la xiriidha. Mustaqbalka amniga badaha sidee u saameyn doonaa burburka ku yimaada Soomaaliya? Badda Soomaaliya waa halbowlaha ugu weyn ee loolanka mustaqbalka. Waxaa la saadaalinayaa in haddii Soomaaliya burburto, burcadbadeed xoogani soo laaban karto, in dalka goob walba lagu arko saldhigyo shisheeye oo badan oo bad ah. Kala qaybsanaan badeed ayaa dhici doonta. Burburka Soomaaliya ma xalinaya dhibaatooyinka gobolka, balse wuxuu abuuri karaa dhibaatooyin cusub oo aan la xakameyn karin. Taariikhdu waxay muujinaysaa in dal burbura uu saameyn ku yeesho dariskiisa, laakiin darisku mar walba ma maamuli karaan natiijada. Aan soo koob 20 qodob ayaan ku siinayaa, kuwaasoo kugu sheegaya maxaa dhici lahaa haddii ay Soomaaliya burburto. Dawlad goboleedyada oo isu bedela dawlado yar, awoodda Muqdisho oo baabaada, Puntland iyo Somaliland oo dalal noqda, Jubbaland oo Kenya u sii janjeersata, Ethiopia oo saameynteeda ballaarisa, Kenya oo amni xumo wajahda, qaxooti cusub oo gobolka ku fataha, argagixisada oo xoogeysata, badda Soomaaliya oo khatar noqota, burcadbadeed oo dib u soo laabata, dekadaha oo lagu tartamo, saldhigyo shisheeye oo bata, ganacsiga caalamiga ah oo carqaladooba, khilaafyada qabiilka oo sii xoogeysta, maamul goboleedyada oo isdagaala, khayraadka dalka oo si sharci darro loo qaato, midnimada Soomaaliya oo sii fogaata, gobolka oo noqda goob loolanka quwadaha, Djibouti iyo Eritrea oo garab go'aya geeska Afrika oo gasha xaalad qalalaase.